Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan bulshadeena ku xidhan kanaalka Waayo Sheeg waa mar kale iyo muuqaal kale. Muuqaalkan waxa aynu kaga hadli doonaa saynisyahankii sirta hubka nukliyeerka ka xaday Mareykanka ee u gudbiyay Ruushka. Klaus Fuchs wuxuu isagoo ka cararay Jarmalka tagay Ingiriiska wuxuuna baxsad ka ahaa Naasiyiinta. Bishii Sebteembar ee sanadkii 1949 madaxweynihii Mareykanka ee lagu magacaabi jiray Harry Truman ayaa shacabka Mareykanka u sheegay in Sofiyeetka ay qarxiyeen bambadoodii ugu horreysay oo nukliyeer ah, isagoo qeexay in Washington ay hayso caddayn muujinaysa in Sofiyeetka ay arrintaas sameeyeen isbuucyo ka hor. 3 bishii Sebteembar 1949 saynisyahano Mareykan ah ayaa dareemay shucaan hawada ka soo galay meel ka mid ah dhulkii Sofiyeetka, kaasoo noqon karay oo keliya tijaabada hubka nukliyeerka. Markii madaxweyne Truman warkaas loo sheegay wuu aamini waayey. Fuchs wuxuu ahaa madaxa waaxda saynisyahanka iyo cilmi baadhista hubka waxkumaada ee Britain. Klaus Fuchs wuxuu meel u dhow magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka ku dhashay 29 bishii Diseembar sanadkii 1911. Aabihiis wuxuu ahaa baadari lagu magacaabi jiray Emil Fuchs oo ka mid noqday dadkii ka soo horjeeday maamulkii Naasiyiinta. Klaus Fuchs qudhiisu wuxuu markii dambe ka mid noqday dadkii aaminsanaa fikradda hanti wadaagga, wuxuuna ku biiray ololaha ka dhanka ah Naasiyiintii uu hoggaanka u hayay Adolf Hitler. Markii uu Hitler qabsaday xukunka Jarmalka, wuxuu u qaxay dhinaca waddanka Britain sanadkii 1933, halkaas wuxuu ku dhammaystay waxbarashadiisii dhinaca sayniska. Kadib wuxuu bilaabay howlo basaas oo uu sameynayay Britain iyo Mareykanka intii u dhaxaysay 1941 ilaa 1950. Mas'uuliyiin Jarmal ah ayaa dowladda Britain u sheegay sanadkii 1943 wuxuu qirtay inuu ka xadgudbay sharciga qarinta sirta qaran ee aasaasiga ah. Saynisyahanadii uu ka mid ahaa ninkan ee cilmi baadhista ku sameynayay xarunta Harwell ayaa suurtageliyay samaynta hubka waxkumaada ee nukliyeerka. Markii la xidhay wuxuu qirtay dembiyada uu sameeyey. Intii ay socotay dacwadii ka dhanka ahayd wuxuu qirtay 4 dembi oo ku saabsan jabinta sharciga qarinta sirta, waxaana lagu xukumay 14 sano oo xadhiga, kuwaas oo 9 ka mid ah uu gudaha ku dhammaystay. Markii xukunka lagu riday, garsoorihii maxkamadda ayaa wuxuu ku yidhi waa ceebaysay soo dhoweyntii iyo badbaadintii uu ku siiyey waddankan. Fuchs oo ay askar geeyeen garoonka diyaaradaha Heathrow 1959 isagoo u socday Jarmalka bari. Kadib markii la sii daayay, Nick Hannes oo ah qoraa wax ka qora taariikhda xarunta cilmi baadhista hubka nukliyeerka ee Harwell ayaa sheegay in Fuchs uu xisaabaad is-afgarasho ah ku gudbin jiray sirta. Master Hannes wuxuu hoosta ka xariiqay sida ay u weynaayeen dembiyada uu geystay saynisyahankan. Wuxuu khiyaano iyo dhabarjab ku sameeyey waddankiisa oo ah halkii sida wanaagsan loogu soo dhoweeyey, uuna ka helay boos uu ugu shaqeeyo xarunta Harwell, welibana lacag badan uu ku qaadanayay hawshaas, ayuu yidhi Hannes. Wuxuu intaas ku daray, wuxuu ahaa nin aad u caqli badan, wuuna ogaa cawaaqibka ka dhalanayay sirta uu gudbinayay. Taas micnaheedu waa inay jirtay suurtagalnimada in Ruushka uu nukliyeer heli karay ka hor inta aysan helin Mareykanka iyo Britain, taasina ay horseedi kartay dagaalka saddexaad ee adduunka. Mashruucii Manhattan wuxuu ahaa sir aad xasaasi u ah. Waxaa la aaminsan yahay in sirta ugu weyn ee uu ninkan bixiyey mar uu xilligii dagaalkii labaad ee adduunka ka shaqaynayay samaynta bambadii atomiga ee ka socotay magaalada Los Alamos ee gobolka New Mexico. Fuchs markii uu xidhnaa 9 ka mid ah 14 sano ee lagu xukumay waa la sii daayay sanadkii 1959, wuxuuna u dhoofay waddankii markaas la odhan jiray Jarmalkii bari. Halkaas ayuu culuumtiisii sayniska ka sii watay ilaa uu ka geeriyooday sanadkii 1988. Waxaa la ogyahay in Fuchs uusan ahayn saynisyahanka keliya ee sirta Mareykanka u basaasi jiray Sofiyeetka. waxaa jiray jaajuusiin kale oo Mareykan ah kuwaasoo Ruushka u gudbin jiray xogtii mashruucii Manhattan, sida saynisyahanada kale ah Theodore Hall, Seifel Sachs, Julius Eder Rosenberg iyo kuwo kaleba. Laakiin Fuchs ayaa ahaa ninkii ugu caansanaa ee bixiyay sirtii ugu badnayd ee nukliyeerka. Fuchs oo hore uga mid ahaan jiray dadka aaminsan nidaamka hanti wadaagga, laakiin Britain way iska indha tirtay arrintaas maadaama cidda hadalka uu ka soo baxay ay ahaayeen Naasiyiinta. 70 sano ka hor, gaar ahaan 1950, Klaus Fuchs waa la xidhay kadib markii looga shakiyay inuu u basaasayo midowga Sofiyeet. Xilligaas Fuchs wuxuu ahaa madaxa waaxda sayniska iyo cilmi baadhista hubka
xukuumadda ee Britain. Intii uu socday dagaalkii labaad ee adduunka wuxuu ka shaqaynayay waaxda tamarta atomiga ee UK, sidoo kalena wuxuu ka mid ahaa howlwadeennadii mashruucii Manhattan ee lagu sameeyay kii ugu horreeyay ee nukliyeerka. Waxaa la sheegay in Fuchs uu warqado xog ku qoran tahay ka tuuri jiray derbiga xarunta, sidaasna ay ku qaadi jirtay haweeneyd magaceeda is-afgarashadu uu ahaa Sonya. Xogtaas waxay ahayd macluumaad xasaasi ah oo ku saabsan sida loo sameeyo bambooyinka, isagoo la taliyayaashiisa dhinaca sayniska iyo militariga ka dalbaday inay baadhitaan ku sameeyaan arrintaas. Markii xogta la xaqiijiyay, Grumman wuxuu soo hor istaagay qaranka, wuxuuna u sheegay in xilligaas wixii ka dambeeyay uusan Maraykanka ahayn waddanka keliya ee haysta hubka nukliyeerka. Markaas wixii ka horreeyay, sirta qalabka laga sameeyo nukliyeerka waxaa haystay Washington oo keliya. Taariikhdu waxay dhigaysaa in 29kii bishii Agoosto 1949 ay Midowgii Sofiyeet si rasmi ah u noqdeen dalka labaad ee haysta nukliyeerka, markaasoo ay qarxiyeen bambadii plutoniumka ee loo yaqaanay RDC-1, taasoo ahayd hubkoodii ugu horreeyay ee nukliyeerka. Sida laga soo xigtay xog ku kaydsan xarunta sirdoonka Maraykanka ee CIA-da, in Sofiyeetku ay heleen hubkaas waxay lama filaan ku noqotay dhammaan dowladaha reer galbeedka. Khubarada Maraykanka ma aysan aaminsanayn in Ruushka ay hubkaas soo saari karaan ilaa laga soo gaadho sanadkii 1953. Haddaba sidee bay Sofiyeetku ku heleen bambada nukliyeerka? Haddii aad Google ku qorto su'aasha ah kumuu ahaa saynisyahankii sirta bambadii nukliyeerka u gudbiyay Sofiyeetka, adigoo ku qoraya luuqadda Ingiriiska, waxaa kuu soo baxaya jawaabta oo ah in saynisyahankaas uu ahaa Klaus Fuchs.